Boqorada Estelle oo ka mid ah dadka caanka ka ah barta TikTok ayaa ka soo duushay magaalada Hargeysa ee caasimadda Jamhuuriyadda Somalilan. Safar dhowr maalin qaatay kadib, waxay ku soo gaartay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Safarkan oo muddooyinkii dambe la qorsheynayay, inkastoo ay ka hor istaageen maamulka Jamhuuriyadda Somalilan, laakiin boqorada Estelle ayaa ku dhaga adeegtay in si walba ay xaaladdu tahay ay bixiyso durban ay tegayso halkii laga keenay ee ahayd caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho. Boqorada Estelle ayaa safarkeeda mar qura waxay ku imaatay Muqdisho iyadoo u imaatay hooyadeed. Inkastoo hooyada dhashay ay dhimatay boqorada Estelle, haddana waxaa soo korsatay oo booskii hooyanimo u joogto ayeeyadeed. Aad ayay iskugu duubtay, kadibna laabta ayay isgelsheen maadaama hilow badan ay u qabtay, muddo badanna ay kala maqnaayeen. Safarkan ayaa xambaarsanaa dhowr nuuc, isla markaana boqorada Estelle badi dadka iyo sidoo kale xogta aan helayno ayaa sheegaysa in boqorada Estelle gebi ahaanba ay jeceshahay in ubadka Alle caloosheeda ka beeray in ay ku dhasho bartamaha caasimadda halkii laga guursaday, halkaas oo ayada iyo saygeeda Haykal isku soo raaceen in ay Muqdisho inta kaga dhiman ay ku sii noolaato. Inkastoo wararka qaar ay sheegayaan qoyska Haykal inay ku cadaadinayaan boqorada Estelle inay dib ugu soo laabato caasimadda Jamhuuriyadda Somalilan ee gooni-goosadka, laakiin boqorada Estelle ayaa dhagaha ka furaysatay, kadibna safar saacado yar qaatay u soo duushay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Inkastoo dhowr toddobaad laga baajiyay safar ay jecleed inay ku imaato halkii hayaanka fog looga doortay ee wiilkan Haykal iska barteen, isla markaana jacaylkooda oo noqday mid dhaxal-gal ah. Laakiin mar qura ayay u soo duushay ayeeyadeed, iyada oo hooyada dhashay ee hadda u nool, isla markaana ayeeyada aad ay ugu faraxday imaatinka ay surprise kaga dhigtay boqorada Estelle oo mar qura taagan guriga. Markii la arkay, aad ayay ugu farxeen waalidiinta guriga. Laakiin xogtaan helayna ayaa tilmaamaysa in boqorada Estelle ay jeceshahay in ubadka Alle caloosheeda ka beeray ama ku dhex beeray inay ku dhasho halkii markii hore laga guursaday ee ah caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.